kani oo ahaa mid sanad walba ay u qabato Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska gobolka Awdal qaar ka mid ah dugsiyada dawliga iyo kuwa gaarka loo leeyahay ayaa maanta si rasmi ah uga furmay garoonka kubadda cagta ee Jaamacadda Camuud. Tartankaasi oo looga gol leeyahay isdhexgalka ardayda, dhiirigelintooda iyo sidii ardayda loo dhisi lahaa jir iyo maskaxba. Ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska gobolka Awdal Xuseen Sitiin Faarax, waxaana uu sheegay in tartankani ay ka qayb qaadanayaan 12 dugsi sare oo ku yaala gobolka Awdal. tartankan oo 12 dugsiyada gaarka ah waxaan leeyahay insha Allah maanta furitaankii inuu noqdo furitaan wanaagsan oo inoogu dhamaada bashbash iyo barwaaqo. asal waxaan moodaa inay ka sii baxayso qayb muhiim ah oo waxbarashada taasoo ah physical education-kii ama ciyaarihii. markii hore wax la baran jiray qayb ka mid ah bay ahayd xiisadaha wala qaadan jiray, imika laakiin way aad bay gabaabsiiyeen. marka tan waxay barabara u tahay sidii loo heli lahaa in ardayga jismigiisa la xoojiyo, sidii loo xoojinayo maskaxdiisa. waxaan furaynaa tartanka kubadda cagta ee dugsiyada sare ee gobolka Awdal. tartankaasi oo sanadla ahaa oo aynu sanad walba qabanaynay. sanadkii ku horeeyay waxaynu ku qabanay degmada Dila, sanadkii ka sii horeeyay waxaynu ku qabanay degmada Buljeed baynu ku qabanay. sanadkana waxaan u xulanay oo inaan ku qabano stadiumkan Jaamacadda Camuud. waxaana tartanka ka qayb galayo 12 dugsi oo ay 8 tahay kuwa gaarka loo leeyahay, 4 ay tahay kuwa public ee dawladda ay gacanta ku hayso. waxa xagga degmooyinka kaga jira 10 waa magaalada gudaheega Boorama, 2 waxa weeyaan dugsiga sare ee Cilmi Talan ee Quljeed iyo dugsiga sare ee Boon oo iyaguna noogu jiro. runtii waxaan aad ugu faraxsanahay in tartan aqooneedka noocan oo kale la soo bandhigo. sidoo kale waxaan aad u jecelahay inaan ku darsado ciyaaraha kadibna in xagga aqoon isweydaarsiga dugsiyadana sidaas si la mid ah loo soo dhex dhigo. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada sare ee degmada Boorama iyo Professor Deeriye Maxamuud Jaamac oo ka mid ah mas'uuliyiinta Jaamacadda Camuud, iyagoona soo dhaweeyay tartankan isla markaana ku bogaadiyay Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska gobolka Awdal. wasaaraddan aad baan uga mahadnaqaynaa sanadkiisa ugu dambeysay xaqiiqatan kooxan way qabatay. ardaydana waxay u noqotay dhiirigelin fiican oo aad iyo aad ugu firtamaan ayay noqotay. kolkaas sanadkii hore insha Allah in 2 arday wada hadal lamida inay noogu dhammaanto ayaan rajaynaa insha Allah. education runtii ma aha ka qalinka iyo buugu lagu bartay. physical education baa jira weligii wax la yiraahdo. kubadda cagta ka mid ahayd, orodada ka mid ahaa, kubadaha noocyada kala duwan baa ka mid ah. qofka bini'aadanka in maskaxdiisa loo dhiso, jidhkiisa loo dhiso waa laga maarmaan. jidh caafimaad qaba ayaa maskax caafimaad qabta ku jirta. marka aad iyo aad baan runtii soo dhaweynaynaa gudoomiyaha waxbarashada kaalinta ay ka qaateen maanta 12 iskuul oo loo kala eegay public iyo private loo kala eegay loo eegayo gobolka inay ka tirsan yihiin. waa arrin aad iyo aad runtii ahmiyadda u leh. aad baan soo dhaweynaynaa. waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu noogu dhamaado dhamaanteeba. ciddii badisaba waxa weeyaan waa qayb soo hoyatay gobolka bay noqonaysaa. waan soo dhaweynaynaa haddaan nahay Jaamacadda Camuud. Wasaaradda Waxbarashada iyo Barbaarintu waxbarasho oo ku dhahato maahina waxa weeyaan barbaarin baa ku jirta. barbaarinta micnaheedu waxa weeyaan xagga diinta iyo xagga caqliga iyo xagga tamartaba in laga dhiso weeyii. Waa Cabsalaan Saaha, warbaahinta qaranka Somaliland.